iyo gobolka bariga dhexe marka la eego sida ay iminka wax u soconayaan iyadoo la filayo inay jawaabo bixiyaan ciidamada ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda kadib markii la soo weeraray gobolada ku yaala koonfurta wadankaasi oo ay ka mid tahay saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda ee wadanka Iran ee Bandar Abbas la yiraahdo iyo deegaano kale oo ku hareeraysan marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz markii ugu horeysay ciidamada badda ee wadanka Iran ayaa ku dhawaaqay Mareykanka inaanu tabar badanba meesha la joogin sidaas darteedna aysan awood u lahayn inay hadda la sii dagaalami karaan muddo dheer ciidamada wadanka Iran waraysi gaar oo bixiyay ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee ciidamada wadankaasi ee dhinaca badda waxa uu leeyahay ciidamadeena hadda waxay ku fadhiyaan guulo xoogan dagaaladana waxay ka gaareen isbedelo waaweyn oo istiraatiiji ah taasi Mareykanka iminka waxay ku abuurtay buu leeyahay niyad jab iyo waliba dowladda Iran inuusan tabar badan u ka hor istaagi karo uusan hayn مسؤول سره oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee wadanka Iran ayaa sheegay in fursadda uu dib ugu qarxin karo dagaal u dhaxeeya Tehran iyo Mareykanka ay iminka u muuqato mid aad u yar isagoo tilmaamay in ciidamadooda ay heegan buuxa ku jiraan haddii Mareykanku uu isku dayo inuu weerar cusub qaado oo wadankaasi ku bartilmaameedsado wakaalada wararka ee Tasniim ayaa warisay in ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ciidamada badda ilaalada kacaanka ee wadankaasi Iran Mohammed Akbar Rida uu sheegay waxa uu inta ku daray ciidamada qalabka sida Iran ay haystaan diyaar garow ciidan iyo waliba saanad ku filan inay uga jawaabaan weerar kasta ee Mareykanka uu ku soo qaado wadankaasi Iran hadalka sargaalkan Iraaniga ah ayaa yimid kadib markii Tehran ay ku eedeysay Mareykanku inay xabad joojin ku dhaqaaqeen 8 bishii Abriil aan had aynu ka soo gudubnay la gaaray kadib duqeymo ciidamada cirka oo Mareykanku ka fuliyay koonfurta wadanka Iran taasoo Iran ay ku anjabtay inay ka bixin doonto mid kamid ah weerarada ugu cuslaatan iyo markii weerarkaasi lagu soo qaaday jawaabtan ayaa imaanaysa iyadoo dunida ay indhaha ku hayeen nooca jawaabta ah oo dowladda Iran military ahaan ay sameyn karayso dhinaca kale xiisadda gobolka bariga dhexe ayaa wali sii socota gudaha gaar ahaan dalka Lebanon halkaas oo ururka xisbiga uu ku dhawaaqay in uu galay isku dhacyo toos ah oo ka dhacay baaliir xadka koonfureed ee wadankaasi tani waxay daba socotaa duqeymo Israa'iil ay ka fulisay taasi oo sababtay dhimashada 31 qof oo ay ku jireen 4 caruur ah sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee wadanka Lebanon wararka sidoo kale waxay tilmaamayaan in Tehran ay dejisay ilaa 5 qodob oo ay doonayso wada xaajoodka iyo wada hadalka ka soconaya gobolka bariga dhexe inay ku wajahdo taasoo marka nuxurkiisa la isku soo aruuriyo muujinaya in Tehran iyo Washington ay hadda dareemayaan qatar weyn haddii arrimahaasi sida dowladda Iran ay u soo bandhigtay loo suurageliyo shanta qodob ayaa waxay kala yihiin in si buuxda loo joojiyo dagaalka iyo weerarada militariga ee wadankaasi lagu qaadayo lana helo damaanad buuxda oo wadankaasi Iran uu ku cadeyn karo dagaalka inuu joojiyo in Mareykanka uu aqoonsado madax banaanida wadanka Iran iyo jiritaanka maamulka kacaanka ee talada gacanta ku haya in cunaqabateynta dhaqaalaha laga qaado Tehran in la xoojiyo amniga gobolka iyo in loo aqoonsado Iran xuquuqdeeda buuxda ee ku aadan maamulka iyo ilaalinta marinbiyoodka Hormuz qodobka ugu dambeeya waxa uu noqonayaa dowladda Mareykanku in aanay aqbali karin marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waana sababta dowladda Iran ay ku doonayso in lacago bilaayin dollar ay ku samayso khidmadaha laga qaadayo maraakiibta isticmaalaya marinka Hormuz qodobkan xitaa marka la eego Shiinaha iyo Ruushku uma muuqato dowladda Iran in ay ku taageerayaan sida ay tilmaamayaan boqorada sida gaarka u falanqeeya gobolka bariga dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda islaamiga Iran Mas'uud Pezeshkian oo hadda wadankiisa uu wajahayo cadaadis dhaqaale oo aad u ballaaran waxa uu ku tilmaamay markii cadawga wadanka Iran ay ku fashilmeen tilaabooyinkii militariga hadda waxay isku dayayaan dhibaato dhaqaale inay ka abuuraan wadankaasi arrintan waxa looga bixi karaa buu yiri isku duubni shacabku ay sameeyaan dowladda Iran talaabo kasta oo cadawgu uu diyaariyo waxay dareemi karaysaa inuu fahmayo ay hadalka mas'uulkaasi uu ku sheegay
hadalkan ayaa waxa uu xaqiijiyay in una sheegay dadka Iran markii uu la kulmayay xarun mas'uuliyiin ka kala socday rogaha ganacsiga ee wadanka Iran. Dowladuna hadda waxa ay doonaysaa in ganacsiga gaarka loo leeyahay kor loo qaado maadaama ilaahay dhaqaalaha ee dowladda Iran ay muuqanayaan Mareykanku inay sii dhuujinayaan. madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in cadawga dalkiisa uu hadda xooga saaraya burburinta dhaqaalaha Iran kadib markii uu ku guuldareystay in uu gaaro ujeedooyinkiisa military intii lagu guda jiray dagaaladii ugu dambeeyay. hadalkan isagoo ka hadlaya baaliir kulan oo la yeeshay xubnaha rugta ganacsiga ee Tehran ayuu Pezeshkian sheegay in dagaalka ugu weyn ee maanta taagan uu yahay dagaalka dhaqaalaha, isagoo tilmaamay in Mareykanka iyo Israa'iil ay isku dayayaan inay weeqaan adkaysiga shacabka Iran iyo waliba noloshooda. cadawga waxa uu ku fashilmay goobta militariga, haddana waxa uu isku dayaa in uu dhaawaco dhaqaalaha qarankeena iyo waliba maamulka shacabka, ayuu yiri madaxweynaha wadankaasi Iran ee hadda wadankiisa wajahaya cunaqabataynta weyn ee dhaqaale. Pezeshkian waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo ganacsiga gaarka loo leeyahay oo la kordhiyo awood dhaqaale ay adkaysi qarankan siinayso. dhinaca kale waaxda sirdoonka wadanka Iran ayaa ku dhawaaqday Mareykanka iyo waliba Israa'iil inaanay ka tanaasulin inay xididasiibaan oo ay ridaan nidaamka kacaanka ee wadaadadu ay garwadeenka ka yihiin, iyadoo sidoo kale eedayn gaara loo jeediyay shirkadaha Mareykanka ee dhinaca isgaarsiinta qaarkood sida shirkadda Starlink ee uu leeyahay ganacsadaha caanka ee Elon Musk. waxaana uu ku dhawaaqeen in tillaabooyinkan hadda sirdoonku ay u muuqanayaan in ay si gaara indhaha uga hayaan. wasaaradda sirdoonka wadanka Iran ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hadafka Mareykanka iyo Israa'iil uu wali yahay nidaamka jamhuuriyadda islaamiga ah inay qayb ka yihiin in la rido. wasaaraddu waxay sheegtay in ilaa iyo hadda labada dal ay hadda adeegsanayaan baaliiri qodobo kale kadib markii ay ku fashilmeen weerarada military sida inay soo galiyaan hub iyo waliba qalab isgaarsiineed oo la doonayo in lagu kala qaybiyo qowmiyadaha iyadoo loo adeegsanayo hanaan diimeed iyo kuwa shucuubeed oo kala bedelanba. wasaaradda sirdoonkuna ay si weyn uga warhayso tallaabo kasta oo la isku soo dayo. sidoo kale waxaa si gaar ah loo eedeeyay shirkadda Mareykanka Starlink oo lagu eedeeyay inay dayax gacmeedyo iyo qalab isgaarsiineed oo internetka oo dagaalada qaybka ah ay hadda adeegsanayaan, taasoo wadankooda ku noqonaysa qatar weyn. hay'adda sirdoonkuna ay si gaar ah arrimahaasi ula socdaan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee maamula nidaamka gacan ku samayska ah ee gobolka Bariga Dhexe ayaa lagu soo waramayaa hadda inuu wajahayo cadaadis dheeraad ah, iyadoo dowladda Iran heshiis kasta oo la galay ay u muuqanayso inay guulo degdeg ah ka gaari karayso, taasoo wajigabax iyo dharbaaxa siyaasadeed iyo mid diblomaasi iyo sidoo kale hanaan militariba ku yeelan karaysa nidaamkaasi ka doobinaya gobolka Bariga Dhexe. warbixino ka soo baxaya gudaha nidaamka Israa'iil ayaa muujinaya in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu wajahayo cadaadis siyaasadeed iyo mid militari oo is soo taraya, iyadoo ila sare oo militari iyo siyaasaddu ay sheegeen in Netanyahu hadda si weyn ugu xiran yahay baaliiri go'aanada madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ee ku saabsan dagaalada saddex geesoodka ah ee Gaza, Lebanon iyo dalka Iran. sida uu qoray wargeyska Israa'iiliga ah ee The Haaretz, Israa'iil ayaa sheegaysa in heshiiska la fuliyay in uu dhaxmaro Mareykanka iyo Iran uu sii kordhinayo xiisadda ka jirta Lebanon, isla markaana uu ka cabsi qaba xabad joojin cusub oo lagu soo rogo dhammaan dhinacyada ka dagaalamaya. Israa'iil ayaa doonaysa in ay qaadato qaybo kamid ah koonfurta wadanka Lebanon ilaa la gaaro wabiga Latva la yiraahdo, halkaasi oo ay doonayaan inay ka hirgeliyaan mashruuca Israa'iisha weyn oo inta badan ku wajahan wadamada dunida Islaamka. warbixintu waxay sheegaysaa in Israa'iil iyo Hezbollah hadda ay isku dayayaan inay joojiyaan ama hagaajiyaan liiri boosaskooda militariga ka hor inta aan lagu dhawaaqin dagaalka in la joojiyay. ila wareedyo Israa'iili ah ayaa sidoo kale qiray in xaaladda dhabta ah ee koonfurta Lebanon ay ka duwan tahay sawirka iyo nidaamka iyo waliba militariga Israa'iil ay soo bandhigayaan. ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay
in ay galeen dhul qiyaastii 10 kilomitir gudaha ugu jira wadanka Lebanon halkaas oo ay kala kulmeen qatar sii kordhaya isla markaana diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xisbigu ay si weyn halkaas ugu dhigbixiyeen sidoo kale waxa la sheegayaa in diyaaradahaasi ay hadda gaarayaan xisbiga sababaya baaliyay inay gaareen guulo degdega haddii Mareykanku uu aqbalo arrimahaasi waxa ay muujinayaan baa la leeyahay in Israel ay dagaalkii gobolka bariga dhexe ku wajahaysa wajigabax Trumpna uu doonayaba guud ahaantiiba inuu iska soo xiro dagaalka gobolka bariga dhexe Iran ayaa waxa ay warbixino cusub ka soo saartay marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz oo qiyaastii 20 kamid ah dhaqaalaha adduunka uu maro oo qaarkood ay ka mid yahay tamarta taasi oo sababtay dawlado fara badan inay saameyn ku yeelato telefishinka rasmiga ah ee wadanka Iran ayaa Arbacada shaaca ka qaaday in uu helay nuqul kamid ah waxa uu ku tilmaamay qabiyo qoraalka hordhaca ah ee aan rasmiga ahayn heshiis afgaradka lagu dhisay ee u dhaxeeya Tehran iyo Washington taas oo laga hadlayo joojinta xiisada gobolka iyo waliba xayiraadda maraakiibta marinbiyoodka Hormuz maraysa iyo barnaamijka nuclearka wadanka Iran sida ay warisay warbaahinta dawladda Iran waxa loogu yeeray qaab dhismeedka heshiiska Islamabad wali si rasmi ah looma dhameystirin iyadoo Tehran ay ku adkeysanayso in aysan qaadin wax tallaabo ah ilaa ay ka aragto fulin dhab ah oo la taaban karo oo dhinaca kale ka yimaado waa Mareykanka telefishinka ayaa sidoo kale sheegay in haddii heshiiska madambaysa lagu gaaro muddo 60 maalmood gudahooda markaasi heshiiska loo gudbin doono golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa halkaasi oo laga dhigayo qaraar caalami ah oo ku saabsan hindisaha heshiiska labada dhinac qabiyo qoraal heshiis ayaa sidoo kale ka hadashay baaliyay xaaladda marinbiyoodka Hormuz halkaas oo Iran lagu wado in ay maamusho dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsiga iyo iskaashiga iyadoo iskaashi la sameynaysa dawladda Carbeed ee Cumaan sidoo kale Tehran waxa ay ballan qaaday in dhaqdhaqaaqa militariga iyo ganacsiga Hormuz lagu celin doono heerkii ka hor dagaalku waxa taas oo Mareykanka haddii uu aqbalay u muuqato inay tahay fashilaad weyn maadaama dawladda Iran ay dagaalka ku heshay sad kale oo maamula iyo waliba dhul ay juqraafi ahaan markii hore aysan gacanta ku hayn hase yeeshee warbaahinta Iran ayaa sidoo kale sheegtay in maraakiibta militariga aysan qayb ka ahayn heshiiska in la xiriira xorriyadda maraakiibta qodobada kale ee ku jira qabiyo qoraadka heshiiska waxaa ka mid ah in ciidamada Mareykanka laga fogeeyo agaarka Iran iyo waliba in la qaado cunaqabataynta arrimaha uraniumka iyo waliba nuclearka ayaa waxa uu yahay mid gaar ah oo la doonayo in 60 maalmood kadib miiska wada xaajoodka la isugu yimaado Trump waxa uu doonayaa in uraniumka gaaraya 440 kilogram oo dhigma 60% in meesha laga saaro halka taasi Iran ay u aragto inuu ku xiran yahay madax banaanida iyo jiritaanka qarankeeda kulan wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan tabinta qaybtan hore ee faaqidaada wararka caalamka iyo lafagurka diblomaasiyadda channelka Cabdicasiis Barrow maanta oo ciida qaybtan intaas ayaan ku hakanayaa warar kale ayaa noo soo socda ku soo biiray YouTube-ka oo mahadsantiin